إلى جنة في أعالي سماء. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود. بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan maanta rabnaa in halkan ku xalino example-ka sagaalaad ee chapter-ka sagaalaad ee statistics-ka, waana mas'alo ama problem ku saabsan celceliska daatada. Haddaba waxaan leeyahay celceliska daatada ama the mean of the weight of the 35 students. celceliska culayska 35 arday oo galaas dhigata ayaa wuxuu yahay 45 kg ama 45 kilogram waaye. haddii marka haddii the weight of the teacher, haddii culayska macalinkooda ardaydaas is included, haddii lagu daro the mean celceliska increased by waxaa ku saa'idaysa ayaa layiri 0.5 kg ama nus kiilo ayaa ku saa'idaysa ayaa layiri. maxaa nagala rabaa marka anaga? waxaa nagala rabaa noola diro inaan soo helno fine soo hel ayaa layiri the weight of the teacher, culayska macalinka soo hela kaasoo daatada celceliskeeda يعني كوسو كرديي 0.5 kg. marka masaladaas ayaan rabnaa inaan xalino. markaan rabno inaan masaladan xalino, marka koowaad waxaan qoranaynaa wax aan haysano. ardayda waxaan haysanaa masaladan waxaa loo yaqaano mean 1 ama celceliska koowaad ayaan haysanaa. celceliska koowaadna waa celceliska 35 arday ee weeyaan. wuxuuna leeyahay sida noola sheegay 45 kg ayuu leeyahay. sidoo kale waxaa noola sheegay celceliska labaad inuu uu yahay celceliskii hore oo lagu kordhiyay 0.5. that means marka mean 2 wuxuu la ekaanayaa 45 kg oo lagu daray 0.5 kg oo wuxuu noqonayaa 45.5 kilogram ayuu noqonayaa celceliska labaad ama mean 2. okay, marka kood waxaan sameynaynaa marka waxaan masalada ka bilaabaynaa xalinteeda inaan soo qaadano mean 1. mean 1 ama celceliska koowaad waxaana la siiyey 45 kg ayaana la siiyey, waana celceliska 35 arday ee galaaska dhiganaysa weeyaan. okay, waxaan leeyahay haddaba 35 arday celceliskooda wuxuu la mid yahay sida caadiga ah ardaydaas culeyskooda oo la isku dardaray oo loo qeybshay number of students. miinka data culeys arday culeyskooda haddii miinkooda lagu diro waxaa ku helaysaa ardaydaas culeyskooda ayaa la isku darayaa kadibna waxaa loo qeybinayaa number of students. haddaba marka waxaan dhehaynaa marka mean 1 wuxuu leeyahay total weight of students, wadarta guud ama isku geynta guud ee culeysyada ardayda oo loo qeybiyay number of students oo ah 35. okay, now hadda waxaan dhehaynaa mean 1 waa haysanaa soo ma, wuxuu leeyahay asaga 45 igu bedel marka 45 waxay la mid tahay dhehaynaa total weight of students oo loo qeybiyay 35. hadda total weight of students ayaan soo helaynaa ama wadarta guud ee culeyska ardayda. waxaan isticmaalaynaa si aan usoo saarno cross multiplication. haddii cross multiplication la sameeyo total weight of students wuxuu ku dhacayaa number 1 sidiisa ayuu kusoo laabanayaa 35 ayaa waxaa lagu dhufanayaa 45. ugu dambeyn total weight of student waxaa soo baxaysa inuu leeyahay 1575 kilogram. hadda waxaan soo qaadanaynaa masaladii labaad ayaan bilaabaynaa. mean 2 ayaan soo qaadanaynaa ama celceliska labaad. celceliska labaad ogaada waxaa waaye waa culeyskii guud ee ardayda waxaa maanta kusoo siyaaday macalinka culeyskiisa ayaa lagu soo siyaadiyey. sidaa la adigeed mean 2 wuxuu la ekaa doonaa total weight of students plus maxaa lagu darayaa weight of the teacher. weight of the teacher lama yaqaano, wt ayaan iska oranaynaa loo qeybshay ayaan dhahaynaa totalka observationska. total observation waxaa noqonayaa eber 35 arday ayaa haysanay, hadda macalinka ayaa kusoo saahiday waxay noqdeen nambarkooda totalkooda number ahaan waxay noqdeen 36 ayay noqonayaan. mean 2 waxbaana la siiyey waxaa haysanaa 45.5. haddaan ku bedelno 45.5 waxay la egtahay ayaan oranaynaa total weight of students waxaan soo helnay 1575 plus ayaan leenahay weight of teacher waan la garanaynin oo loo qeybshay numberska guud ee observationka lagu sameeyey oo ah 36. now hadda waxaan sameynaa cross multiplication anagoo hormarinayna halka t ay ku jirto crosskeeda. haddaba waxaan dhehaynaa haddii maxaa dhihi jiray 1575 minus t plus t haddii lagu dhufto hal sideed ayay kusoo laabanaysaa waxay la egtahay oranaynaa 45.5 oo iyadana lagu dhufanayo 36. waayahay haddaba sideeda kusoo celi 1575 plus t sideeda ha inoo ahaato 45.5 markii lagu dhufto 36 waxaa soo baxaysa 1638 ayaa soo baxaysa.
Okay, now si aan t u helno ama weight of teacher si aan u helno waxaan ku qasbanaa 1525 inaan dhinaca kale u wareejino sida la jeedo waxaan dhahnaa weight of teacher wuxuu leeyahay 1638 meesheeda taala haddii kan la soo wareejiyo 1525 minus ay noqonaya oo laga jaray 1525 ayaan oranaynaa sida la jeedo weight of teacher wuxuu leeyahay doonaa 1638 oo laga jarayo 1525 iyadana la mid ah 63 haddaba waxaan dhahnaa culayska macalinka soo kordhiyay 0.5 kg ga min ku soo kordhiyay waa 63 إلى جنة في أعالي سماء جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد